gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saraar iyo sidoo kale xubno ku hadlayay afka wasaaradda deegaanka magaalada Caynaba ayaa ka hadlay ka ganacsiga diinka. Gudoomiye ku-xigeenka iyo sidoo kale xubnaha ku hadlayay afka wasaaradda deegaankaasi oo ka wacyigeliyay dadka ku dhaqan deegaankaasi goobka lagu hayo xayawaanka loo yaqaan diinka. Sidoo kale waxa ay bulshada deegaankaasi ugu baaqeen inay ilaashadaan khayraadka dalka. Iyagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa kamid ah hadaladoodii. Waxa inagu haray ka deegaanka ku nool ka deegaanka ku nool baalka diinka la yiraahdo horta wixii kale waynu gureyn jiray baalka diinka la yiraahdo inagu dhulkeena uu ku badnaado yani waana ka ku gaabiyo waxa aynu mucjisa inagu soo dhaxay bir dhowta diinkii baa la doonayay hadii bedgeliyay dadka qaadaya ee raraya yani la hadal hayo waxa ina soo galay aynu iska ilaalino waa kaydkeeni hadii bedgeliyay waxa weeyaan dhulkeena quruxdiisa iyo kaydkeeni ma ka yar ملعب بيننا وقلنا إن لقاده أنا قلنا كمسؤولية هن وحاول دجال بانو لقلينا إتكستو يعني وحاسدنا يمكن يعني عرورتين ورنب الله ترى قف اللي يتون ضرب على جسيس يا كرنايا هو اللي بختي ويا يصور بخت بين بالله شقدت كيني وحنا بالنا إنه حويان كنا إذا كان إلى شنو ملكستو ديجان هي أمد يعني أنت لقاري كرنا لقاري شنو ما أنت هنتدي نورد وجابت hantida noolayd wixii cunu jiray dugaaga ahaana ka duurjoogta buu inaga joogaya dadku cunaya hadii isaga meesha laga saaro marka ka dadweynahaana waxaan uga digayaa cidii ka nool ku soo duushay xayawaanka ahi waxay doonayaan in anaga la cunaa oo bahali xoolaheenu cunu jiray markii xoolo dhamaadeen diinka iyo mas'agalada cunaano inaga jeedeen hadii labadii dad inaga iibsado oo koonfur la qabto inaga la cunaya reerka minka la caawa qof baa laga cunaya soo saarma ogoladee midda kale magacii diintu xambaarsan waaba diin mucjisana way jirtaa arrinka ilaahay habeenka uu diinka qolofta ku soo roga aayadaha quraanka sheego cidda daandaasata waa ku gafaysaa oo karan baruur baa markii hore la oran jiray ilaahay buu magan galay cidda imika ku soo duushay hadaynu ku celin weyno inaga laftigeena marka mucjisadii nagu soo wareegaysaa ma ogolin way iska celinaynaa diyaar baanu nahay rag iyo dumar ha ogaadaan waanaga u sheegnay hadii ay dayn waayaan waan gacan biraan iska qabanayna ugu dambeyntii gudoomiyaha duurjoogta Mahad Faarax ayaa sheegay inay wadamada caalamka qaarkood xiriir ka sameysteen ka ganacsiga xayawaanka loo yaqaan diinka waxaana kamid ah hadaladiisii hore Caynaba waad islaamay aniga magacaygu waxa weeye Mahad Faarax waxaan ay gudoomiyaha duurjoogta waxaanu ka nimid magaalada Burco ujeedka safarkaygu walaalayaal waxa weeye maalmihii u dambeeyay waxaan malqaynay saylad diinka lagu kala iibsado laga furay magaalada Muqdisho walaalayaal arintaas wayna soo gashay habeenadii u dambeeyay waxaad ka malqaysay magaalada Ceergaabo laga hadlaayo guud ahaan Soomaaliland way soo gashay arintaasi walaalayaal waxaan idin sheegay horta marka hore diinku wuxuu ka mid yahay xoolaheena isaga xayawaan kale dalkeena ku noolba waxa koow ka dawladda Imaaraadka Carabta Kuwait iyo Qatar waxa weeye dawladahaasi hore inoo dhaceen duurjoogtii wadankeena ku noolada hore gurteen waxay ku xareysteen xiriir ku yaala magaalooyinkooda oo la leeg Burciya Hargeysa inta u dhaxaysan leeg waxa weeye sanad kasta wax ka soo gala malaayiin dollar diinkana maanta inay ku daraan bay doonayaan walaalayaal Caynaba dawladaha xayawaankeena ee Carbeed miya wax caawimo idin keeneen waxa weeye diinkeena inaynu ilaashano oo aynu maskeena ilaashano oo aynu musaacagaleedana ilaashano soo kama goona inaynu ku dhimano soo kama goona waa Shaakir Cabdi Ahmed SBS TV magaalada Burco.